10 14 15 16 17 18 marka 10 inta ka imaana 10 wuxuu ka imaana qaybtaana 10 ku jirto kuwana 10 ana 1 2 3 4 5 6 7 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو ناكسن مالنا خروح بدن ونرجعنا أنا عافمات هاتنا مقال كان الدعوة سو إلى حمدي يعني وأنا عافمات قواهاتنا مقال كان الدعوة وقت والبو كويكوتاي وحنقول هاي هكو هذا وقتي آد خروح بدن هل كان وأكرم أونلاين كولج أنا جن وحنا هاي بكر نحن عبد الله سونامي مادة كيمستري فصل كفوم 2 جبتر كيس كواد خيبتي سأفراد إن شاء الله وحنكون بلانسنا إن كهذلنا groups of modern periodic table إن كهذلنا كلكا ماركتايو تسياشا عري كلتسها عرياش إن كهذلنا وحن كهذلنا إن شاء الله groups وحن كسو هذلنا periods كي كلكيا كسو هذلنا هذانا وحن كهذلنا groups كي إن شاء الله أنا قاعد استعمالنا بوجا كنا كسو هذا ضمن مالها أقوم يمسن إن شاء الله دو إلهي رضا groups كا wuxuu ka kooban yahay qayb vertical columning qaybta jiifka waxa la dhahaa groupiska sida daraadeeda 18 group ayuu leeyahay periodic table-ka marka laga soo bilaabo dhanka bidix oo loo aado dhanka midig oo macna tirinta hadii laga soo bilaabo dhankan bidixda oo xagga la aado 18 god ayuu yeelanayaa way yani halkii meelood waxay yeelanaysaa 18 groups ay yeelanaysaa oo 18 group ay yeelanaysaa wala kala qaadaya marka 18 ka waxa loo kala qaadaya main group waxa loo kala qaadaya sub group qolo loo yaqaano main group waxa loo kala qaadaya qolo la yiraahdo main group ee kuwa loo yaqaano sub group markan waa main groups kuwana waa sub group ama kuwan waxa la dhigi karaa transition metals al dhikara transition metals ayal dhikara birdhaxaaley waxaan ka hadlaynaa waa maxay groupiska periodic table-ka ayaa laba loo kala qaadaa yani meesha ay ku qoreen curiyaasha ay ku jiraan godka curiyaasha ay ku jiraan group ahaan markii loo fiiriyo laba loo kala qaadaya labadaasna waxay kala yihiin main group iyo sub group ay kala yihiin markaas wuxuu yiri afwan main groupiska waxa la dhihi karaa buu yiri representative al dhihi karaa representative ayaa la dhihi karaa buu yiri marka main groupiska ayaguna waxa la dhihi karaa representative al dhihi karaa representative ayaa la dhihi karaa waa representative na waa loogu yeeri karaa kuwan waxa la dhihi karaa transition waa la dhihi karaa waxaas muhiim ma ahan main group iyo sub group ina fahanna muhiimadu ay tahay intaas markaan wuxuu leeyahay marka main groupkii buu sheegaya marka anaga hadda kan waxa u qoraysan bal ahaan maybe ina waxyaabaha qaar taayulkan isku dawmariyay la baasa laakiin muhiimadu waxay tahay inaan fahanno marka ugu horeysa groupiska sidee loo tiriyaa groupiska marka la tirinaayo sidee loo tirinayaa waxaan xasuusanaa casharkeeni periodiska ahaa waxaan u tirinaynay 1 2 3 noocaas aan u tirin jirnay laakiin groupka say u tirinaynaa group waxaan u tirinaynaa qolo group 1 group 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 yani marka groupka tirinaysid group waxaad u tirinaysaa ul macnaha group nooca u tirinaysa laakiin sa u tirinaysa periodka period group sa u tirinaysa group
macnaha xirmadan saan waa group kana waa group soo tirinaysa okay marka waxaa jira qodob loo yaqaan main group marka main group waxa la dhahaa labadan meeshan taala labadan inta taala 1 iyo 2 iyo 3 4 5 6 7 8 intana waxa la dhahaa main group wala dhahaa main group ama kan waxaan dhigi karnaa 3 iyo 10 4 iyo 10 5 iyo 10 6 iyo 10 7 iyo 10 8 10 marka 10 intoo ka imaana 10 wuxuu ka imaana qaybtaana 10 ku jirto kuwana 10 ana 1 2 3 4 5 6 7 inta marka waxay noqonaysaa 3 iyo 10 bay ku soo aadaysaa almuhiim groupka nooca baa loo tirinaya marka main group yaa ah marka main group waxa ah group koowaad groupka labaad 3 iyo 10aad 4 iyo 10aad 5 iyo 10aad 6 iyo 10aad 7 iyo 10aad 8 iyo 10aad magacyo la kala dhahaa marka magacyo loo kala bixina kuwan groupkan waxa la yiraahdaa alkali la dhahaa kuwan alkali kuwan waxa la dhahaa kuwa ku xiga oo labaad yani kuwan waa koowaad moogtahay koowaadka waxa la dhahaa alkali metals la dhahaa birta alkali ayaa la yiraahdaa okay marka birtan alkali dhammaan curiyaasha meeshan ku jira waa bir weyn kuwana waxa la dhahaa alkali earth metals ama waxa la dhihi karaa alkaline earth metals na waa la dhihi karaa waa kana waa groupka labaad marka 3 iyo 10aad iyagu 3 iyo 10 4 iyo 10 5 iyo 10 6 iyo 10 waxa lagu magac daraa curiyaasha koowaad family la raacina marka saalahan kan kale waxa ugu horeeya group 13 boron Soma boron family carbon family nitrogen family oxygen family waxa aan sheegay maxaa waaye waxaan sheegaynaa kalkii tusaha la kooxeeyay group baa laga dhigay laba koox baa loo kala qaaday main group iyo sub group main groupkiya waxa la dhahay waa 8 diya marka hadda aan tirinona magacyada loogu kala yeero 8 ayaan sheegoona kan waxa la dhahaa alkali metals kan waxa la dhahaa alkali earth metals macnaha haduu magaca metal raac waa bir macna bir waa okay kan waxa waaye boron family carbon family nitrogen family oxygen family labadan soo haray marka qoladan oo fluorine ka bilaawato waxa loo yaqaanaa halogenes la dhahaa iyaga waxa la yiraahdaa halogenes kuwan ka dambeeya ee group ugu dambeeya ana waxa la yiraahdaa noble gas la dhahaa iyaga waxa la dhahaa noble gas hadda marka waxaad haysataa 8 iyo 8 group main group ah waa haysataa hadda alkali metals alkali earth metals boron family carbon family nitrogen family oxygen family halogen and noble gases waa kaamar hadda waxaan ka baxnay main groups-ki waxaa noo soo haray qolada loo yaqaan sub groupka waa kuwana iyaga dhexda dega curiyaha fiir soo qaado periodic soo qaado kuwa dhexda ku jira ma jiraan labadan sarahan iska dhaaf dhexdooda kuwa degan kuwaasa waxa la dhahaa sub group baa la dhahaa kuwan waxa la dhahaa sub group ayaa la yiraahdaa ka marka kuwan waxa la dhahaa sub group okay halka marka waxaan ku fahanay yaa main group ah yaa sub group ah main group waan soo sheegnay sub group kan sidoo kale waa inuu soo sheegnay okay wuxuu yiri marka sub groupka waxay ka bilaabanayaan buu yiri group 3 ilaa waxay gaarayaan group 12 bay gaarayaan 18 waxay bilaabaan group 3 ka bilaabanayaan maxaa loo jeedaa yani kan 1 2 3 intuu dhacaa marka 3 intuu dhacaa 3 ka bilaabana 4 5 6 7 8 9 10 11 marka intuu ku gaaraa 13 waxa uu gudubtay main group ka gudubtay laakiin sub group wuxuu ka bilaabanaa group 3 oo 1 2 3 intuu deganaa group 3 kadibna group wuxuu ku dhamaanaa 12 ku dhamaanaa fahanti way inta marka kadib waxa la isticmaali karaa roman number iyo waxa uu tilmaamayaa warka meesha baan iska dhigaynaa marka wuxuu yiri kalka tusaha group numberka wuxuu tilmaamayaa
number of valence buu tilmaamayaa buu yidhi number of valence electron buu tilmaamayaa in that group elements in the same group buu yidhi curiyaasha ku jira group isku hal ah have same number of valence electrons wuxuu yidhi waxay leeyihiin valency electron number ayay leeyihiin oo hadii isku group ku jira tusaale ahaan isku group waxa ku jira uu yiri sodium iyo wuxuu noo soo qaatay potassium hoos ay dhacdaa waan ka soo hadalnay hadii sidaan ay isku garab istaagaan waxa la dhahaa same period laakiin hadii saan isku garab istaagaan waxa la dhahaa same group marka wuxuu yiri waxay tilmaamayaan number of valence shell-kooda number of valence electron-kooda isku hal ah buu yiri macnaha oo maxaa loo jeedaa shell-ka ugu dambeeya electron isku hal ah baa galaya kooda tusaale ahaan aan soo qaadano wuxuu noo soo qaatay sodium iyo wuxuu noo soo qaatay potassium hadan soo qaban tusaale ahaan sodium hadan ku sameeyno electron configuration anagoo isticmaalna hanaanka shell-ka buugu isticmaalay waxay noqonaysaa shell koowaad oo kala laba galaysa shell-ka labaad oo kale waxa galaysa 8 labana xaga dhig laba halka dhig inaa saan qurxisa fiican marka sameynayso shell dambaadka waxa galaya hal baa galaya marka kan waa sodium soma wuxuu leeyahay group numberka wuxuu noo tilmaamayaa number of valence electron-ka same uu noqonaya sodium waxa u dambeeya hal soma potassium inuu hal u dambeeya marka potassium waa inuu hal u dambeeya okay aan sameyno mid kale aan ku dareena marka okay xaga waxa galaysa laba potassium waa 19 inta waxa galaysa 8 galaysa 8 baa galaysa okay 8 tabanaan haynaa halkaan 8 kala galaysa 8 aan haynaa 10 ijala u dambeeyay marka 19 tanna waa imisa 19 tanna waa imisa 11 marka anaga we don't care about the numbers ay haystaan muhiimadu ma ahan ee muhiimadu waxay tahay same group curiyaasha ku jiraan waxay leeyihiin same number of valence electron bay leeyihiin electronka ugu dambeeya hal weeyaan si fudud aan u qorno fiir 2.8.1 sodium waxa u dambeeya hal u dambeeysa potassium ka waran 2.8.8.1 maxaa u dambeeya hal this is the valence kaasa waxa la dhahaa marka valence electron-ka kaas weeyaan waaye casharkan iyo afraad halka baan ku soo afjareynaa insha Allah haduu Ilaahay raado waan rajaynayaa in muuqaalka aad wax badan ka fahanteen casharka xiga iyo YouTube hadii aad inta in ka badaaran aad rajaynayso ku soo biir Akram Online College